wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Somaliland ayaa daahfuray kulan lagu falanqeynayay doorka agaasimayaasha guud iyo gudoomiyaasha hay'adaha madaxa bannaan ee Somaliland ee ka gacansiinta dakhli ururinta ee wasaaradda maaliyadda. Kulankaasi oo ka qabsoomay Hotel Royal Palace ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa sidoo kalena goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland iyo waliba agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka iyo madaxda hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda. Kulankaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Somaliland Dr. Saad Cali Shire oo kulankaasi ku go'aamiyay in mas'uuliyiintu ay ka qayb qaataan dakhli ururinta wasaaradda maaliyadda. kulankeenu wuxuu lahaa laba ujeedo, mid waa ujeedada caam midna waa ujeedada gaar ah. ujeedada caamka waxa weeye sidii aynu isaga kaashan lahayn dakhli ururinta, sidii marka aynu heli lahayn waxay nooga qoondeysan miisaaniyadda, dakhliga miisaaniyadda nooga qoondeysan oo inoo suurtagelinayo markaaynu dee isticmaalo miisaaniyadda hay'ad walba inay isticmaasho miisaaniyaddeeda. cashuuraha halka ka soo gelaysaan waa saddex meelood. meel waxa weeye kuwo ay tahay inay qaadaan oo hay'adaha iyo wasaaradaha qaar badda GRka ay socon kama waa cashuur idin soo maraysa oo qaadaysaanba. midna waxa weeye waa cashuur aad ku khasbaysaan qof idiin baahan inuu cashuurta lagu leeyahay soo bixiyo. qodob kalena waxa weeye cashuurta idinka soo galaa waa cidda cashuurtii ku waajibtay ee jidkiina soo martay inay ku wacyigelisaan cashuuraha lagu leeyahay xitaa haddaydan ka qaadi karin amba aydan ku khasbi karin, laakiin inay wargelisaan haddana wax lagu leeyahay cashuurahaas. dhinaca kalena agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Cabdi Gurxan oo madashaasi hadal ka jeediyay ayaa sharaxaad ka bixiyay cashuuraha la doonayo inay ka qayb qaataan mas'uuliyiintani ilaalinteeda, kuwaas oo uu tilmaamay inay kala yihiin cashuurta qandaraasyada mashaariicda miisaaniyadda ka baxsan 3%, cashuurta macaashka shaqaalaha laga guneeyo mashaariicda miisaaniyadda ka baxsan, cashuurta laga rabo madeganayaasha ayuu agaasimaha guud hoosta ka xariiqay. waxaanu halkan marka ugu horeysa aanu idinla wadaagi doonaa in aanu idinla socodsiino halka ay marayaan dadaalada dawladdu ay wado ee ay ku dardargelinayso kuna kordhinayso dakhliga qaranka, oo marka hore waa la socodsiin si aad u ogaataan halkay wax noo marayaan. qodobka kalena waxa uu ka hadli doonaa waaxda cashuuraha bariga iyo saraakiil farsamo yaqaan ay inoo faahfaahin doonaan waajibaadka sharci ee sharciga maamulka maaliyadda uu saaray gudoomiyaasha hay'adaha madaxa bannaan iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha, waajibaadka ka saaran ilaalinta dakhliga dawladda ee wasaaradaha iyo hay'adaha ay ka tirsan yihiin ka dhalanaya. laakiin qodobka kale ee isna xusida mudan ee maanta in badan aynu dul istaagi doonaa waxa weeye miisaaniyadaha badan ee runtii kaalmooyinka ah ee ay wasaaradaha iyo hay-adaheennu ay helaan in aad iyadana ku ilaalisaan wixii mashaariica cashuuraha mashaariicda in aad ka jartaan, wixii gunno iyo mushaharana in aad cashuurta mushaharka iyo gunnooyinka ka reebtaan. sidoo kalena madashaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Somaliland Farxaan Aadan Haybe oo ka waramay ahmiyadda ay leedahay in dawladdu ay iskaashato. waxaan u arkaa shirkan inuu muhiim yahay wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda iyo qarankaba inuu muhiim u yahay. haddii dakhli la waayo oo dakhliga aynu ku talagalnay oo daraskeeni soo xaroon waayo ama aynu farsamooyin aynu ku kordhino weyno, suurtagal maaha in wasaaraduhu sacyiga ay u ordayaan iyo hay'adaha dawladduba inay culays ku saaraan wasaaradda maaliyadda in miisaaniyad loo kordhiyo. ka hay'ad ahaan diyaar baanu nahay inaan wixii suurtagal ah ee taalka yaa la shaqeyno, guud ahaanna inaynu la wada shaqeynaa waa muhiim. waxaa isaguna halkaasi ka soo jeediyay warbixin ku saabsan cashuurahani agaasimaha waaxda cashuuraha bariga Cabdisalaam Busi oo ka waramay ahmiyadda cashuurahani. waxaan halkaasi su'aalo lagu weydiiyay la xiriira cashuurahan iyo warbixintiisa. Cabdikariim Saciid Saalax, Telefishinka Cable, Hargeysa.